السلام عليكم كسر دوارد فاتوش فاميلي channel halka aan naga daawanaysiin waa فاتوش family maanta فاتوش family maxay wada فاتوش family maanta waxa ay wada topic no anfacaya anaka dhan way anfacaya not qof kaliya marka topicaas wuxuu ku saabsan yahay ilmaha safety-gooda wax badan ba ilmo iga maqli doon dadka qaar ka maqan waxa ka baahanaa فاتوش topic kale no ilmaha ma sha Allah البها وح ما شاء الله وسك كفتايا ووح أقوم هنسون إن شاء الله عن ربنا كبرتك تقرأنه مركا ما أنت topic عن كهلا يوحى ويا safety البها يركا إن شاء الله وح كستو أي فاتوش family شيء جس وح يقدر يسع قف كنا لا ربنا قدر إن شاء الله because وح أنا جا عن شيء إن شاء الله هدو إلى هيدهم حاول ما نقرأ يعني soo marka safety-ga maanta ka hadlayno waa badbaadada ilmaha yaryarka sida ugu wanaagsan oo loo badbaadiyo ilaahay ka soo ilaahay baa wax badbaadiyo marka safety-ga waad ogtihiin yani qof banooc u qaataa waxyaalo badan baa jira oo raba ilmaheena hooyooyinkeena ma sha Allah waalidka dhan aabi iyo hooyo waa la taxadiraa laakiin waxyaalo yaryar oon miis karayno marka qaar kood aanan yani samaynin oon anaka u arkaynin wax safety-ga inay ka mid yihiin haddaba موضوع waxaan u soo doortay inaan bulshada ku wacyi galiyo on ka wada faa'iideysano hadaba hadii aad Fatush family ku cusub tahay subscribe saar hadaa barnaamijkayga daawadid oo rabtid channel-kayga inuu meel kasta laga daawado oo hooyo kasta iyo aaba kasta ay ka faa'iidaan iyo bulshadeena ya xil isa saar ma li jira xil isa saaro list qof kasta oo daawanayaba 5 qof ama 10 qof intii aad gaartay karaankaaga aad taqaanid la share garay waxa tira please Fatush family subscribe garay waa gabar ma sha Allah waxay ka hadasho waxyaalo anfacay marka subscribe u saar kambalka furaya support my sister ya saasa lij marka saas ii sameey insha Allah qof kasta serious hadii aad ka hesho barnaamijkayga waxa kugu qasaba inaad bulshada insha Allah la share gariso hadaada ka helin qasama laakiin waa hadaa ka hesho haddaba mawduucani hadii aan u soo noqono waxa waaye waa very important soo marka waxyaalo waxaan rabaa maanta pointi ah kow laba saddex aan dhahay inaan maro oo ay must tahay insha Allah cunugaaga inaad barto si uu u badbaado ama aad samaysid sidii ilmahaaga ay safe u ahaadaan ilmaheena dhanna ay safe u ahaadaan insha Allah muxuu yahay number 1 safety-ga marka guriga la joogo haddaba oo hooyooyinka guriga joogaan ilmo yaryar aleeda waad aragtay cunuga tirtir albaabka qof haduu maqlo dariska haduu maqlo albaabka ayuu furaya haddaba waxa muhiim ah in aad cunugaaga ku dhahdid oo marka hore at that time lama rabo because sometimes dad ba is ceyrsan kara waa aragteen qof baa wuxuu soo galiyaa guri islaameed mistake asagoo ama midi ama xabad wax wata soo lama rabo cunugaaga ka war haduu inta waxaas ka hortago albaabka iska furo waxa arkay ilmo yar guri baa garaacaysa ama guriga saaxiibadan cunug yar waxa arkay albaabka fog iska sinay waalidka xataa waxa laga masqash inuu ku jiro waqti bay ugu qaatay Fatush ahaan my 2 year 1 year 2 year and half ka I don't know inuu garanayo laakiin aad baan uga ilaalinay laakiin my 4 year and 5 year and half inaan baro albaabka ha furin inaan baro waqti bay ugu qaatay but I tried my best to ii shaqaysa so hooyooyinka that's why aan raba inaan ula wadaago cunugu waad fariisanaysaa 4 jirka 3 jirka uu iska ordaa buu waad la fariisanaysaa waxaad u sheegaysaa in uusan albaabka furin soo hooyooyinka badankooda waxa laga yeedhay albaabka ha furin no daad ma shaqayso maxaad ku dhahaysaa mataqaan albaabka ha furin stranger baa noo soo galaya soo ilmaha badanaa qurbaha jooga stranger u yaqaanaan especially ilmaha ingiriiska ku hadla so stranger ilmaha sasan ku bara wayn ii shaqaysaa alxamdulillah stranger muxuu sameynaa wuxuu rabo uu sameyn karaa so don't ever open the door haddaan mas'uul ku jiro haddaan meel kala joogo haddaan ku agtaan ilaa aniga aan ku dhaho practice baan ku sameynaa aniga aabahood waxaan sameynay aabahood baa banaanka u baxay albaabkan xiraya ma oga moogta asaga banaanka u baxay tug u soo sina maalmihii ugu horey ha furin aa lagu yiri soo kuma dhihin ha furin way ogyihiin hataa aabahood inuu jiro so they have to resist waxa la dhahay jiro cunugu inuu iska qabto iska celiyo uu barta asagoo yar maxaan sameynaa banaanka u baxay asagoo u jeeda aabihiis wuu xiraa albaabka xiro ku dhahay albaabka xiro cabaray intuu jiiradu istaag gub u siina maalmihii ugu horey maxay sameyn jireen uu ku boodi jiray soo maxaa la barnay
الباب كمركي لا قراعه انت اج استاغتid قب نقص يا وايا الا دا بيرسون او اشرحه هفر waa ku celcelin ma ka daba noo shaqays banaanka markuu baxo aniga haddaan soo garacay ogyiin banaanka waa ku maqayn aabahood inta xagga istawlee don't open you have to ask first 5 year ka barka wali 5 sano iyo barka jira you have to ask albar marka waa garaaca marka hooyo codkeeda maqasho ama aabo codkiisa maqasho haduu yahay fur laakiin somebody aadan garanayna codkiisa don't open ayaan bar soo waalidka ka taxadara ha furin albaabka kaliya hadhe teach them the risk waxyaalaha ka imaan kara oo xun hadii albaabka la furo way ku fahmayaan ilmaha yarka ha u moodin inay si fahmaan way ku fahmayaan practice ka hadda aan sameeyno amal samee ha furin because albaabku waa too risky especially dadka apartmentiyada degan because apartmentiyada baa la isku qaldaya tireeraha ka jabis waa la isku qalda dad waxa kula deganaan kara oo isbursado oo isdila soo cunugaagi albaabkaaga hadda inta gagagag soo siin oo darq ku soo dhaxa ka war no so you have to teach bahal kale hadda ina albaabka u kacan ka haysanay bahal waxa jira aan ku dhagsado waa ina soo share gareyn doona bahal waxa jira aan ku dhagsado albaabka kor cunuga dhab kaga siinay soo muxuu sameeyay albaabka furma ku daco ma wuu fura albaabkeen badana hadda albaabkeena kale wuxuu ku furmaa haddaan xiro bahalka ina furtid ma aha because automatic waa dhiig ku shaqeeya marka cunuga saa marka uu qabto albaabka rag asaga siinay yani asagoo batoonka saa looga xiray taabanin cunuga taabashadii bis uu taabtay because waxa way guriyaha waxaan deganaa swipe ka lagu furo oo saan bahalka ina banaanka ma ka soo galaysa furaha asaareen soo jarq asra soo waxay ugu tala galeen gudaha inuu saqa xirmi karin because hadda qof hadduu soo galo oo bahalka saarto waa inuu iska furmo albaabka soo waxaan deganaa the riskiest because waa smart guriga ugu caaniga smart way baasha sala saarna hay soo waa cunugi muxuu sameyn jireen ilmaha handalkay qaban jireen handalkii markay qabtaan naxdin aniga cunugi wuu iska furmo uma baahna baasha inuu taabto soo waxay ugu noqotay inta walmaad aada inaan bahal ku xiro oo practice kan sameeyno oo waxa soo albaabka safety ga kamid tahay waa ku dheeraad waa because waa very important that's why ugu dheeraanay bara ilmaha inay albaabka maxaa number 2 ku soo xiga waxa ku soo xiga ilmahaaga bar markii aad guriga la joogtid phone numbers ilmi iskuulay ku aadan sama yiriska hada qaada phone number waxa ana bartaa waxa taleefanka cunuga 4 sano markuu ka bilowdo wuu qaban karaa daa isfaatush family ayaa ku soo bartay inuu cunuga 10 ka number ba xididin karo hadaa ku celcelis I did it cunuga inuu 5 sano iyo barka inuu taleefanka korka iga shaqo because wax kasta ay cunuga qabsan kara maxaa isku baray mid qaar taleefan numberkii aan korka xifdisay markaan korka xifdisay waxa aan baray lacala taleefankaas cid uu siin karo haduu banaanka ku dhumo yaa uu dhumi kara that's my phone number ki hooyaday uu dhigi kara haduu hooyo qof intuu ku soo dhaho taleefan because wax ka saas ka dhici kara you don't know what's going to happen so wayna iska taxadirta yani hooyooyinka inay more taxadir sameeysi waa yani aniga iska mikin iska garayna laakiin waa inaan more maxaan baray kale waxaan baray wadankan aan joogay because dadka been badan jooga waxaan baray 911 waxa dadka 911 bawaalidka way ka cabsan laakiin 911 cabsi ma because we help hadda maxaad arkaysaa dadka ajaanibta ilmo yar yar oo wax badbaadiyay ilaahay baa badbaadiyay laakiin because of cunuga hooyadiis guriga la joogtay iyo aabahood waxbaa si ka noqday 5 sano jir baa taleefanka u wacay muxuu ugu wacay because he know how to use emergency ga waxa la dhaho he know help sida loo weydiis imagine haddii Soomaalida laga helayo 5 sano jirkoodii 7 sano jirkoodii cunugi meel uu access karayo because adduunyada wax kasta iska dhici kara allahumma ilaahow naga najee inay wax nagu dhacaan anaka ilmaheena waxaan ku seexana maalin kasta waa taas waa sax laakiin adigana you have to be prepared ya soo cunugi maxaan baray taleefan numberkayga maxaa uu wacane waan practice garaysanay 911 la iskama waco waxyaabaha 911 loo waco cunugu wuxuu ku noqonayaa Soomaalidu ay ka cabsanayaan laakiin familiar waxa la wuxuu ogaanayaa in wax cabsiyo jirin yani cunuga hada hooyada tira 911 bar cunuga si loo waco waxa laga yaabaa inay tira oo ma rabta cunuga inuu igu waco no you have to teach your kids you need to teach them kaba soo qaad guriga marka aan isla joogno odagay u shaqeynaa waxaan dhihi jiray hadii la cala hooyo ana iska joogo because bini aadan ah ilaahay saacada nafka daqiiqad kasto iga qaadi kara I don't want ilaahow hana guriga cunugayga dabki dhari ii saaray inuu waxay ku dhacaan soo maxaan bar cunugayga hadii maami kula hadli weyso cala dhulay ku dhacday lacala yani waxba si ka noqday hadii maami kula hadli weyso idinka guriga jooga you need to call 911
maxaad ku dhahaysaa waxaa ku taleefankaa wacaysaa waxaad ku dhahaysaa mommy need help just that's it maani cunug yar hadduu waco waa isku dhamaatay 911 aaba wacnaba no haddaan rabno practice ka dhigan oh sorry cunug yarkaa ku soo ciisi qofaa kula hadlayso ma arkaysaa maalintii oo wacay dharag intuu taabto 911 wacasuu nin baa naga qabtay qof baa naga qabtay that was a practice laakiin marta ma taleefankaygii ma ka wici karaan beediyo already now ya haddii lacala guriga anoo ka joogna kaba soo qaad aabahood iyo ayka kaliya isla ani banaanka ku soo baxay haddii maxaa dhacay waxaan ku yiri far haddii cunug yar ka go'da 911 no because he knows sir qofka markuu hadli karin oo kula hadli karin ayaa 911 la waca so you need inaa bartiin ilmihiin hooyo wax arkay kaligeed guri iskaga nool cunug yar iska haysato 6 sano 7 sano asa aqoon cunugeeda si haddii wax ku dhacaan help u weydiisto marka faatuush family taxadar la ka tahay soo maxaan kala baray cunugaaga you need to teach cunugaaga 5 sano 4 sano sida loo furto taleefankaaga very important because cunugii hadaaba tir 911 waco cunugii guriga taleefanka kood uga xirato suuq u caray cunugii taleefanka soo waa inaa bartaa cunugii ilmahayga way garanayaan labaduba way garanayaan afar jir 5 sano bir way garanayaan taleefankayga sida koodka loo furo maxaan ku baray ma ahan inay wax ka daawanayaan ma ahan inaan dhaha isticmaal waxa aan u baray in ay wacdaan 911 haddii lacala hooyo wax ku dhacan aabo wax ku dhacan gurigeen labadeena way furan karaan taleefanka dharag waa la furnaaya numberka waa la gelin karaa because maxaa u baraya as a safety ilaahay naguma keeno qof kasta uu ogyahay laakiin safety soo muhiimadda cunugiina bara 911 sida loo wacdo markaa qurbaha joogta iyo noocyada cunuga u wacan karo taleefan numberkaaga waa muhiim iyo taleefankaaga koodka ku xiran inaa cunugaaga barto be careful maxaa kale cunuga baraysaa in uusan stranger waxa la dhaho waa inay garanayaan stranger waa inaad u kala saartaa cunuga markuu yar yahay stranger waxa la dhaho dadka uusan aqoonin waay Soomaali ahaan iyo dhibaatooyinka ka imaan karta iyo si waalidkiisu kala duqeeyay because haddii cunuga ka hor qofka habaab iska siiyo soo bari waa laga wadan karaa soo macnaha stranger la dhaho waa inaa bartaa cunugaaga waxa arkaysaa kala soo baxay Soomaalida ilmahooda ayagoo banaanka joogan 5 bay sii deysanaysaa cunugiiba wada ku orday cunugiiba iska caray qararac biin guriga waa inaad ugu soo sharaxdaa cunugaaga inuu soo ordin waa inaad bartaa baabuur haddii cunuga ordo in baabuur ku dhici karo waxa ku dhacay so fiir ilmaha very genius waa aad u aqal badan uu ku dhageysanaa wuxuu ku leeyahay haye wadadan ku carar maxaa igu dhacay baabuur oo maxay igu sameynaya madaxa kugu dhafanaya انت ديغا كا ايمانيس عنقو فهمه سو markii banaanka loo wacay don run عنقي maxaa dhahay banaanka hadaa u baxno oo aragtid oromaarig li guriga ku soo noqonay soo cunuga uu garanaya because they need to take fun playground ka raba inay aadaan saaxiibaha hadaa leedahay raba inay aadaan ma rabaan risk inay qaataan soo maxaa sameynay waxa leedahay 5 sano jirka 4 sano jirka labada iyo barka markii aan hadda waa arkaa waa la struggle garay ma aamino gacantaas ugu dhiganaada ma aamino because we yiriha wali yani waa barayna don't touch don't run wixii waa barayna stop ila soco wixii dhan waa barayna laakiin wuu yiri laakiin by 3 sano cunugayga markuu gaaro banaanka markaa u baxno ilaaho waxa nagu ridin anakii ilmaheena aamiin noo dhaha gaari kama celiyo downtown hadda degana downtown is the riskiest aad u xun downtown is the riskiest because guri gaari inta kamara gaari inta wax waa tuumay maxaa sabay ilmahayga markaan u baxno banaanka ma ordayaan totally kan yar kabis oo labada sano iyo barka gacanta ku qabanayna the rest is no art because I already explained wa u sharaxaya and they take that rule ay qaadanayaan way follow garanayaan marka ilmaha u sharaxa riskiga uu leeyahay wadada in lagu carabo maxaa kamid ah waxa kamid ah markuu ay arko cunug banaankiiba u baxa wadadii ay buu arko soo waa inaad u sharaxdaa banaanka markuu ay ku arko because hooyooyinkiiba ku daysanaya waa cararayaan hadaba ilmihiiba markii ay arkaan in uu si ayga ka cararin because cunugii ama adigii adoo ay ka cararaysid ayaa dad badan ay ku dhacday ilaahu ha nagu keenay ay ka cararaan in baabuur ku dhacaan soo ina cunugaaga bartid inuu banaanka markuu arko roadka wadada ay uu arko ay uu saka carar ay waxba dhibeen teach your kids it takes time special dadka qurbaha ku nool aad bay u badan tahay meel kasta joogtay waa taa Soomaaliya baaburtu way ordaan so teach your children ha ku ordin wadada ha ay hada arta caran adiga hooyada weyn ay marka arta adoo cunugaaga la socod
role model waa inaa noqoto waa inuu qof uu ku daysan karo aad noqotaa oodan ay marka aad carin si tartiib oo akhlaaq la cunugaaga meel oo la wareegto oo la aado maxaa kaloo safety ka mid waxaa ka mid ah cunuga yararka inaa u sharaxdid noomaara si u yar yihiin in haddii taleefankaaga qabtaan uusan yacni markii ilmaha yarka Soomaaliya marka qaarkood taleefanka qabtaan way arkayaan way isticmaalayaan in uu cunugu waqtiga uu fahmo stranger-ka aad fahmaysiiso dadka online-ka in aad kala hadashid oo online-ka waa very risk safety ma in aad online-ka kala hadashid oo tiraahdo cunugaaga online-ka waxaasaa kaaga dhici kara hadda for example ilmahayga waxaan ku dhahaa haddaad taleefanka intaa qabatid soo taleefankii ma barin furihiisi soo taleefanka iskama furaan meel kasta ha haddaan arko badanaa picture ka daawanayaan markii taleefankayga furaan hadday arkaan soo meelayaan picturada yacni family pictureska ay koo yaryar waxaasay ku qoslaan marka maxaa idhahda mar kasta waxaan uga sheekeeyaa ha taleefanka markuu arka adoo haysid waxaa dhici karta inuu stranger kaa dhex arko kula hadlo wax kuusa yani waxaan diidaa meelaha kale inay sii galgalaan marka make sure taleefanka markaa qabatid inaadan meel gelin pictureskaas waa aadi kartaa don't ever go to another place hooyooyinka sidoo kale ilmaha waaweyn waa inaa uga sheekaysin online-ka riskiga uu leeyahay in aysan dad online ka baranin waxyaabaha qisooyinka waa ilmaha waaweyn roon yani 10 sano iyo markuu weynaado hadda kuwa kale weerari just waxa kale oo u bari kartaa waxay tahay waxyaalo oo aad tiraahdo hebela kaaga soo baxay stranger iyo laakiin ay ku long road ma garanayaan waa ku tagaysaa hadhow laakiin ilmaha hooyooyinka ilmaha roon leh online-yada waxyaalaha ka imaan kara adoo cunugii yacni stress ku ridin oo dhibaataynin in aad familiga open discussion aad ka dhigatiin oo topic aad ka hadashin uu ahaado oo tira hooyo waxyaalahaas ka imaada online-ka dadka waa iskala hadlaa qof aqoon oo uga sheekaysa maxaa kale topic kale maanta yacni waxyaalaha kale ilmaha oo aad yacni ka Soomaalidu waa waxyaalo dad badan baa isku qabsan ilmaha markii aad iskuul u dirsanaysid oo iskuulka dhiganayaan ama way dhiganba waa in aad bartaa for safety waliba adduunyadii hadda way xumaatay for safety ina cunuga bartid bad parts waxa Soomaalidu kuma fiicni markay sheekadaas timaado bad parts because hatta waxyaabo badan ilaahay hanaga najiyo anakii dadka islaam oo qof kasta hanaga najiyo bad parts ilmaha bare bad parts-ka waxa la yiraahdaa qaybaha jirka kamid maxaan u leeyahay bas cunuga markuu u yariyo iskuul markuu aado wax kasta adduunka iska dhici kara you don't know ilmahaaga wuxuu arki doona you don't know ilmahaaga cidda is arkayaan so make sure as hooyo iyo aabba adoo taxadaraysid ilmahaaga baadhi baartiskooda barjirkooda bar ha ku qaldin waxyaalo kale Soomaalideena isticmaalaan oo dhahaan wixii baa la qarinayaa waa ceeb anigaan faatuusha la igu dhahay maxaa la arkay hadda ka hor saa igu dhacday ilma cunugayga yar asagoo jira 4 sano jir ay gabar saaxiibada ay soo wacday waxay maqashay qayb baad parties asagoo yacni ku dhawaaqay midaba uu yacni waxaan diyaar u noqonaynay inaan dhaqano ama istiyaarno markaas ay tiri waxay cunugaaga saas u yiri markaas ay why because bad parties ku sheegay yacni baan maqlay markaas ay it's okay ma kuwa yararka hadda markaas may dhalan hadda 1 sano jirka iyo I think labada iyo barka uu joogo u yar asagoo yar u joogo markaas waxay dhahday why cunuga markaas waxaan ku dhahay why discussion ba anay saaxiibadina dhexmaray why aa u bartay iyo reasonka loo rabo inaan barto why cunuga saas inuu dhaho eraygaas ma fiicno yes because cunugaaga in uu kala bartid must why because cunugaaga hadda waa inuu barta qaybaha jirkiisa kamid ah uusan dadka la wadaagi karin qaybaha uusan dadku tusi karin magacyadooda bari waxa bad ilaahay noogu rido ilaahay baan ka magan galnay ilaahay baan ka magan galnay laakiin for example cunugi maanta wuxuu rabaa inuu cawradiisa sheego privatekiisa hay hadaadan barin magaceeda soo ku sharxaya bari hay balaayooyin iyo wax ilaahay naga duwe badan baa bilowday soo cunugaagi maxaa meyn aan ka wada bad part waa inaa barta oo tiraada qaybtan jirkaaga kamid ah only hooyay aaba bisa arki kara qaybtan saas baa la qaybtan adaa iskale qaybtan qof aad tusi kartid ma wuxuu baranayaa xishoodka wuxuu baranayaa inuu wax qariyo wuxuu baranayaa yacni inuu jirkiisa qarsado waxyaalo badan buu baranayaa soo laakiin ha isku dayinin ilmaha inaad baadhi baartigooda qarisiin amaba aad ceeb ka dhigtiin oo diidiin inaad bartiin because it's very important waa muhiim waxayna ka mid tahay safety hadal barida cunuga inaa hadalka bartid because waa inuu ku sharaxi karaa soo jirkiisa bar hadalka bar u didaal because hadhow iskuul markuu ku aado
haddii cunugaaga wax laga gardarno ama wax lagu sameeyo waa inuu exactly kuu sheegi kara laakiin hadhow maxaa lagu sheegi doonaa oo dhacaysa storiga kale storiga cunugaaga complete maaha so waa inuu cunugaaga kuu sheegi karaa cunuga ilmaha hadda markii ay la joogo guriga haddii gacan saas loo qabto waa inay sheegi karaan gacantaana layga qabtay gacantaana saan la iga yiri meeshaana saa iga dhacday oo jirkoodan ay free u yihiin ay garanayaan baadi baartiga soo hooyooyinkow ha ka xishoonina cunuga baadi baarti bara baadi baartiga maahan inuu meel kasta iskaga dhaxaya maaha waxa waaye inuu kala garanayo jirkiisa inuu garan karo meesha qof uu ku ag banayn karo 5 year aan hadda markii kina preschool hadda ka hor ii bilaabeen waa u sheegi jiray because already waan baray musqusha sida la iskaga hagaajiyo ayaan baray ayakoo yar waan remember garaya last year ba ahayd markii aadan yaa sanadkan ma ahayn preschool bay aadeen labadooda iyo wada aadeen oo hadda mid 4 sano waa pre-K Cimraana waa kindergarten so preschool bay wada aadi jireen waa midka xanaanada camal ilmahayga waan baray teacherka wuu yaabay so because muxuu ku yaabay qolka guriga musqusha ugu dhex taala barkay ugu dhex taalo waxaan baray musqushooda in qofna u geli karo iskuulkii baan ku kontroolaya musqusha cidna inama geli kartaan ku dhaa because you already know sida loo kala garayso maaha sida wax kasta la iskaga kala garayso ma garaysaa teacherka waxaa ku tira excuse me ku dheh way ku dheheen haye so waa inaa bartaa so because way wuxuu yidhi musqusha marka hadda iskuulka anuu ogeyn macalimadda aysan ogeyn inaa aniga usoo sheegay ay dhahdo hey ilmahaaga waa independent why maxaa yeelay أميرة استحجرت هذا عنق وتا دايبر بوتا هذا she doesn't have diaper and she knows how مسكوش هذا لا استعماله مسكوش هذا لا حرته وين دي أنا لا قاله because she said أنا جوان كرناي you see very important because she was just 3 something حتى 4 منه yeah 4 منه because محاكيني بقولي أو قلت تحضري إن شاء الله هو يكسرنا ساعة تحضر عنق markuu 5 sano 6 sano jiro inaa barti musqusha sida la iskaga kala garay wax kasta oo og yahay in jirkiisa in la arko ama qof u galo because markay xanaanada yihiin oo yar yihiin badana musqusha macallimiinta ayaa la galayo oo musqusha galba la dhaha waa loo hor istaaga qaarkood waa la caawina 3 sano diaper wata arkaysa oo diaperkii wali wata no guriga waa ina marka waxaas uga soo taxadirta cunugaaga diaper wata haddii ay daycare-ka kugu qasbin ama aadan shaqo iyo dhibaato kuu keenin by 3 sano cunugaaga markuu yahay waa inuu clean ka yahay diaper waa inuu musqushiisa iska hagaajin karaa because 2.5 ayaa lagu bilaaba waa hooyadii taxadaraysa iskuulka markuu biri iskuulku aado musqusheeda waa ina gelij waa run 3 sano ayaka inta wadankan joogno 3 sano diaper buu qabaa buul absay wada qaban musqul ay ka dhigtaan so no saddex jir waa ka aqal badan oo ku gadanayo marka insha Allah boo ducaan maanta aad baan u jeclaa inaan inii faa'iideeyo waxyaalaha ii shaqeey wax kasta in la wadaago waxa waaye intaas buu noo joogaya mawduuceeni safety-ga ilaahay hana badbaadiyo annaka dhan aan ducaysano ilmaheena iyo annakaba ilaahay hana badbaadiyo waxaana taxadar bi iska kaayay because ilaahay wuxuu yiri didaal ana waan kula jiraya bisaastan ka wadnaa ma ogi bini aadan baan nahay waxaan awoodno mare just baryaha ilaahay iyo waxaan awoodnaa iyo ina iska taxadarno marka asxaabtayda aad ka qaaliga ugu ah ee daawata idinkuna ila taxadar insha Allah annaka dhan ilaahay hana dhowro awlaadeena annakana ilaahay hana xifdiyo mawduucana maanta intaas noo joogaya hadduu topic-aygu ku soo gaar oo ka hesho hooyooyinka kale la wadaag ayakana way ka faa'iido doonaan insha Allah wayna ku duceyn doonaan assalaamu calaykum